كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركي بقولي صدحية طبناد قيبتي لبعض لسد أوبتك إيو قيبتي مركا إنو كجو رميني كإلالنت أوبتك حمانت مركا برنامج كيني بربارنت أوبتك وحين صوبح إنه هرنع يرو جود أو كوبان أو كوسا حبسان بل هذا ومحي نمعوين كإلهي وحقوق حيابا كو أبورين مركا ما أنت حنكو رمي دونا سيابا أوبتك اللوغو إلالي حمانت قيبتي هذا كوبات waxaa markaa istiidaanu difli fi dukhuul ilmuhu markuu guriga soo gelayo ama markuu waa maxay waalidkii qolka ay ku jiraan uu gelayo inuu iidan waa maxay permission waa maxay markaa uu ogolaansho inuu weydiisto. ubadka guriga inoo jooga saddex mid bay noqonayaan marka laga yimaado waa maxay inaga dadka dibadda inaga jooga dadka guriga inoo jooga waa saddex mid bay ka koobnaanaya qoliyo iyagu waa markaa qaan gaadhay iyagu waa maxay 15 dhaafayba iyagu kuwa maxay deeray waxbay kala gadan iyagu waxbay barteen kuwa iyagu maxay kama waramayno marka wixii sax iyo wixii qalad iyagu ay noo kala gadanayaan marka waalidka waa wixii marka ay uga baahan yihiin wixii oo dhan iyagu maxay ka waramayno marka waajibka saaran way gadanayaan waalidkana wax marka way fahansan yihiin marka ka ku xiga waxa weeye hadaba ubad iyagu waa maxay wali aan marka waa maxay qaan gaadhin oo xilliga waa maxay qaan gaarka kusii socdo marka kuwa u dambeeyana waa keen maanta waxay kaasoo maxay aynu ka warrami doonno marka kuwa u dambeeyana waxa weeye kuwa maxay iyagu waxay wali marka aan qaan gaadhin isla markaana waa maxay xataa inay wax kala saaraan oo macna waxa inuu xumaan yahay xataa maxay aan kala garan karayn saddex qolo maxay marka noqon doonaan ubadka maxay guriyaha marka ay noo joogaan marka kuwa hadaba qaan gaarka wali aan gaadhin waa maxay wali qaan gaarkii aan gaarin waa maxay ka warrami doonaa qaabka ay ogolaanshaha looga baahan yahay soo waxaan sheegi doonaa hadda kuwa yaray iyaguna maxay wali xataa waxba kala saari karaan waxba aanu kala garan karayn iyaguna waxba looga baahan yahay waalidkeen u sameeyay baynu eegi doonaa insha Allah ta'ala waxa la yiraahdaa sida anagu aynu naqaano caadiga ahi ilmaha guriga marka uu ku nool yahay macnaha waxa la yiraahdaa markasta wuxuu isku dayaa sida uu sameeyo markastaba macnaha inuu markastaba galo mar boqol uu ku maxay ugu wareego qolkan uu gala hadana kan kale uu galaya hadana kan kale uu galaya marka in la yiraahdo war marka qolka soo galaysid hooyga aabba u soo galaysid idanna weydiiso aad bay ugu adag tahay baa la yiraahdaa marka sida daraadeed ayaa hadana islaamku wuxuu ricaayo iyo ilaalin iyo marka waa maxay uu xadidayba dariiqo marka waa maxay ogolaanshaha marka la sameeynayo iyo waqtiyo kooban oo xadidan oo looga baahan yahay in marka ubadka waalidka ay ogolaansho weydiistaan waqtiyadaas hadaba saddex waqti marka ayaa waa maxay quraanku inoo sheegayo waa xilliga marka salaad subax ka horeysa iyo xilliga marka duhurka marka ka dambeysay qayloodada marka la yiraahdo iyo salaada cishaay marka kadib weey saddexda xaaladoodba waxa looga baahan yahay ubadka yar waxa wali aan qaan gaarin xilliga qangaar ku sii socda in ogolaasho maxay waalidka marka waa maxay ay weydiistaan marka iyo marka waa maxay iyo markasto ay arkaan been albaabkii waa maxay xiran yahay ama waalidkii qolka ay ku jiraan iyagana waxa looga baahan yahay marka idan ay weydiistaan hadaba hadaynu marka yar jaleecno aynu marka yar eegno bal hada macnaha guud iyo aayada quraanka say uga waramayso iyo habka ay quraanku inoogu sharaxayo inoogu soo dhigayo iyo ama axaadiista nabigu ay inoogu sheegayaan ayaa Ilaahay marka uu leeyahay ya ayuhal ladina aamanu liyasta'dinkum alladina malakat aymanukum ayaa marka la aynu eegno tafsiirul Baghawi ayaa waxa uu ku fasiraya ama macnayaasha ku fasiraya waxa kamid ah waxa uu leeyahay ibn Abbas radiyallahu anhu ayaa marka waa maxay Umar bin Khattab ayaa marka nabigu waxa uu diray ilmo yar buu diray marka oo mudlaj marka bin Umar la oran jiray macnaha si marka waa maxay ugu yeero Umar bin Khattab oo marka waa maxay uu la soo hadlo markuu u galay oo guriga maxay ilmihi yara guriga maxay ugu teegay ayaa waxa uu arkay xaalad marka waa maxay Umar
uu karahsaday marka ilmaha yar maxay inuu xaaladda dee arko ama inuu maxay la kulmo Cumar marka uu karahsaday marka culimada tafsiirka waxay yiraahdaan macnaha karahsiga Cumar ibn Khadaab uu karahsaday ayaa marka aayadani ku soo degtay marka kale waxa la yiraahdaa waxa ku soo degtay baa la yiraahdaa Asmaa bint Murth gabadh la oran jiray ayaa marka waxa ay lahayd iyaduna maxay ilmo yar marka la ahay marka maxay uu soo galaa kadib maxay macnaha way karahsatay waxa la marka nabiga uu tii maxay ku tii nabiga Ilaahayow macnaha kuwii noo khidmeynayay ama dadkii noo shaqeynayay ama ubadka iyaga yaryara macnaha maxay way noo soo galiyaan mar kastaba annaga marka maxay de karahsanayna kadib waxa la dhahaa ay marka aayadan istiidaanku iyo ogolaanshuhu ay marka soo degtay marka hadaba aayada markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu ka waramayo ayaa waxa uu leeyahay macnaha kuwii iimaanka laga helayo liyasta'dinkum alladhina malakat aymanukum macnaha kuwii aayadu gacmihiina marka ay milkiyeen macnaha idan iyo ogolaansho marka haydi weydiistaan marka kuwa gacmuhu milkiyeen waxa laga wadaa macnaha dadkii xiliga hore jiray macnaha adoomihii ragii adoomaha iyo marka dumarkii adoomaha ahaa ee waxa leeyahay marka idin jooga idin haydi weydiistaan iyo walladina lam yablughu alhuluma minkum idan sidoo kale waa maxay haydi weydiistaan kuwiina marka idinku waa dhasheen ee xortaydii ah ee marka waa maxay lam yablughu alhuluma aan gaarin xiligii marka waa maxay qaan gaarnimada marka oo halka waa maxay lagama wado kuwii marka iyaga waa maxay aan waxba kala saari karayn ama kuwii waa maxay iyaga waxba kala saari kan lagama wado hadda markaan sheegaynay waxa laga wadaa maxay kuwa aan wali qaan gaarin ba laga wada lam yablughu alhuluma ilaahay muxuu yiri minkum 3 marrat saddex marka jeer am saddex xilam saddex waqti idan marka haydi weydiistaan min qabli salati al-fajr salaad saxan maxay ka hor iyo waxiina tad'uuna thiyaabakum min adh-dhahira iyo marka xilliga dhuhurka marka wax marihina marka dhiganaysaan iyo wa min ba'di salati al-isha iyo salaada isha maxay kadib marka saddexda waqti culimadu waxay tafsiirkan baqay waxa uu leeyahay macnaha waxa waa maxay loogu xadiday ama marka waxa loogu khaas yeelay waa saddexda waqti ee marka khalwada ama qofku waa maxay qolkiisa waalidku ay gelayaan ayaa marka waa maxay loogu gaar yeelay marka waa xilli marka waa maxay qofka insaanka uu iska nasanayo qolkiisa tagayo waa maxay xaaskiisa ama odayga qofka waa maxay uu la kulmayo marka waxa loo baahan yahay xilliga qofka haduu adoon yahay ama haduu qof yahay guriga ka shaqeynayo shaqaale uu yahay ama ubadka yarar ay yihiin marka waa maxay idan marka ay weydiistaan ilaahay muxuu yiri 3 awraat lakum macnaha waa saddex awro weeyo waxa la yiraahdaa awro waxa loogu magacaabay waa xilliga qofka marka marihiisa marka uu dhiganayo marka ilaahay aad wuxuu ku sii xidseynta dambe laysa alaykum junahun wala alayhim macnaha idinka korkeena iyo maxay korkoodana waa maxay wax dambi ah marka ma saarna xillima macnaha dawaafuna alaykum macnaha markay deedii khidmeynayaan ama waxay qabanayaan macnaha wixii inta ka soo haray bacdahunna saddexda waqti wixii ka soo haray hadii marka waa maxay dadkii ay waa dawaafuna alaykum dadkeeda la joogo macnaha marka ku soo noqonayaan ama weydii soo galayaan ama weydii ka baxayaan macnaha waa maxliyada kale inta ka soo haray wax marka waa maxay dambiya marka waa maxay malaha marka idinku marka way waxa tin dad marka wada deegan isla jooga marka laakiin xiliyada gaarka waa marka waa maxay idan marka ay weydiistaan way marka halka waxa la yiraahdaa aayada quraanka ah macnaha saddexda waqti ay xambaarsan tahay macnaha ku jira aad runtii u balaaran yahay runtii waxay yiraahdaan waana waa maxay yaqfuluhu al-kathiru fi hayati manziliya waana waqtiyo dadka guriyaha degani ay iska moogan yihiin weeye marka waana waa maxay keer baan sameeynino ay yiraahdaan macnaha ilmo yar muxuu waa maxay arkaya ama qof iska shaqaala ama iska soo galaya ama qof waa maxay guriga ka joogo oo kale ama ubad yar yar waa maxay macnaha waa maxay ilaahay in hadalkiisa waa maxay xikmadda ku jirta iyo maxay in qofku inuu raaco marka loo baahan yahay waayo waxa la yiraahdaa ubadka yarar qalbigooda saafiga ee cadaanka ahi iyaga waxaan wax weyn marka lama laakiin waxa la qalbigooda iyo maskaxdooda ay marka maxay isku seef kareynayaan marka macnaha haday awro arkaan haday wax marka arkaan waxay arkayaan si kala duwan marka ha u arkaan macnaha wax isku seef kareynaysa ma la marka kadib waxa la hadhow waayo dambe ay marka waxay ku soo baxayaan marka macnaha fi marka waxa la haawi saameynaysa marka noloshooda waxay marka bay saameyn ku yeelanaysa marka saasoo kale Anas bin Malikna saasoo marka waa maxay ogolaanshaha nabiga waxay u weydiisan jireen marka nabiga tuu ku lahaa
laa tadkhul ilaa biidin, macnaha idan la-aan waa maxay guriga markaa kusoo gelin. intaa waxaynu kaga baxaynaa qoliyaha markaa waa maxay iyagu dee aan qaangaarin marka laakiin wax kala garanaya. waxaa ku xiga hadda muxuu noqonayaa xukunka ilmaha yar maxay qayl mutamayizka, macnaha qofka waxba aan kala saari karaynba. ilmaha yar isagoo waxba aan kala saari karayn, maxaa xun iyo maxaa cawra iyo waxba aan kala garanayn, iyagoo maxay aayad dhan baa kusoo degtay markaa waa maxay khaas ku ahoo oo ilaahay markuu dumarka la hadlayo ku lahaa waa maxay macnaha hadda indhihiin iyo cawradiin astura waatuu ku lahaa macnaha waxaa ka qarisaan waxayna ka qarinayn waa maxay dee waalidkiina iyo walaalihiin iyo kuwa markaa kusoo sheekeynayay ayuu ilaahay wuxuu yidhi aw idifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati الnisaa. aayadda inta waxaa looga jeedaa macnaha waa ubadka yaryar kuwaan qaangaarin maaha, kuwa qaangaarinaya maahe waa kuwa macnaha waxaa la yidhaahdaa sinan tadcuuhum ila alidlaaci calaa cawrati الnisaa, macnaha waa kuwa da-doodu ama ejkeedu aanu gaadhin macnaa inay daalacdaan ama ay eegaan dumarka cawradooda weeye. marka awidifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati الnisaa, marka kuwaas markaa wax dhiib ha yaratay waa maxay markaa ma laha. kuwa yarar marka iyaga maxay qaangaarin iyo marka dee waalidkiiba iskala joogaan wax yarar marka aad iyo dhashaan hadda aad u da-yar marka iyaga waa maxay waxay la mid yihiin kuwa ilaahay marka uu leeyahay iyagu markaa way eegi karaan marka way la joogi karaan marka iyagu. marka saddexdaa qolo mid qaangaadhay oo isagaan loo ogolaynba iyo mid maxay hadda weli aan qaangaarin isaga waxaa looga baahan yahay in markaa inuu idan weydiisto. kaa yareysna maxay markaa waxba kala saari karayna isaga waxba markaa maxay loogama baahna aw idifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati الnisaa buu soo hoosgelaya marka intaas waxay ku kooban tahay in waa maxay ilmaha inagu waxa laga yaabaa qofku inuu dembi galo inuu meel fog ka eegayo, laakiin waxaa la yidhaahdaa waxay ka bilaabmata shay kastaba gurigu ka bilaabmaa. marka gurigeena maxay ka bilowno ubadka maxay aynu ku tababarno macnaha waa maxay inay shay kasta idan marka ay weydiistaan guriga markay soo gelayaan markay waalidka u gelayaan markastaba taasaa ka mid a markaas yaa ubadka aan u ilaalinayno macnaha indhahooda markaan wax maanta aan uga ilaalinayno wanu sii wada doonaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam.